Goolhaye Alisson Becker ayaa ammaan kala duldhacay saaxiibkiisa Virgil van Dijk. Goolhayaha kooxda Liverpool ee Alisson Becker gacmo weyne ayaa sheegay in saaxiibkiisa Virgil van Dijk uu haysto tayo aad u sareysa, isagoo tilmaamay inuu yahay difaac gaar ah isla markaana uu kalsooni siiyo saaxiibadiisa Reds. Alisson Becker ayaa warbixiyay doorka uu Virgil van Dijk ku lahaa kooxdiisa Liverpool xilli ciyaareedkii oo dhan. Wuxuu yidhi, wuxuu kalsooni weyn siiyaa kooxda iyo dhammaan ciyaartoyda. Marka aad haysato ciyaaryahan weyn sidaasi oo kale ah, wuxuu kaa joojinayaa halista kooxda kasoo horjeeda. Aniga ahaan waa ciyaaryahan weyn. Waxaan kaloo haysanaa daafacyo aad u fiican oo waxaa ka mid ah Matip baa ka mid ah, Jose Gomes oo Dejan Lovren oo qof walba wuxuu qabtay shaqo weyn xilli ciyaareedkan, laakiin Virgil wuxuu haystaa wax gaar ah. Alisson Becker ayaa xilli ciyaareedkan dhawaan dhammaaday wuxuu shabaqiisa ilaashaday 21 kulan waa xilli ciyaareedkan 2018-2019 oo isagoo baashi ku cimaamatay oo yimaaday kulan kasta oo ka caawisay inuu ku guuleysto abaalmarinta Golden Glove. Saaxiibkiisa Alisson Becker saaxiibkiisa Ederson buu hal gool oo kaga baxsaday oo habeenkii Brighton of Albion iyo Man City koobka qaadisay. Hal gool baa laga soo taabtay shabaqiisa Ederson. Alisson shabaqiisa ka ilaashaday Watford inay xabad ka dhaliso. Ninkani weeye. Dhinaca kale, Virgil van Dijk wuxuu ku guuleystay abaalmarinta xiddiga sanadka ee Premier League. Wuxuu haatan u sharaxan yahay ku guuleysiga Ballon d'Or-ka, oo la dhihi karaa Ballon d'Or-ka Virgil van Dijk uu ku guuleysan karaa maadaama uu hadduu odagii Messi ahaadee uu ku soo haro gurubyada Copa America. Wuxuu calaamad weeye Virgil. Mohamed Salah hadduu soo qaado isagu koobka Afrika, wallahi iyagu waa calaamad ma lahan, inkastoo si arkuna uu bartan taagan yahay oo aan laga qaadayn. Marka baashu waa Virgil van Dijk iyo Salah hadday soo wada qaadaan koobka, inkastoo Virgil van Dijk uu keenay qarankiisa Netherland meel aad u fiican oo halis badan oo final looga qaaday weliba 1-0 oo aan wax lagu qiimeyn karaan lahayn. Marka waxa laga yaabaa inuu Ballon d'Or-ka oo sanadkaas qaato maadaama uu golfkii u qaatay Alisson. Kabti dahabkana la wada qaybsaday Aubameyang, Sadio Mane.